wafti uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Baashe Maxamed Faarax ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland iyo golaha wakiilada Somaliland iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo maayarka degmada Laascaanood iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa gaadhay jiida Tukarraq ee gobolka Sool. halkaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland isagoo laga tacsiyay dhammaan ciidamada ku dhintay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Puntland. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ayaa waxa uu hanjabaad u diray maamulka Puntland. Ciidamada qaranka Somaliland waxa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horeeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay la u tagaan waxay tagaan mooyee ay waxba yeelin aad iyo aad bay taana ugu amaanan yihiin. waxaan kaloo sheegaynaa waxa weeye ciidanka qaranka Somaliland wixii ka dhintay ama ka dhaawac wixii ka dhintayna ilaahay naxariis janno ha geeyo wixii dhaawacna ilaahay caafimaad ha siiyo. waa dagaal lagu khasbay maaha dagaal ay iyagu soo doonteen dhulkii ay ku dhaarteen aanu annaguna ku dhaarannay ayay joogaan oo weli dhul sii hadheen oo cid ka soo timaada caalamka aanu u sheegaynay ciidanku meesha ay joogaan inay joogayaan laakiin ay hore u soconayn tiiba hadda la dayn waayo la soo shaqaynaya maalintii dhaweyda UN-ku timina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliland meesha uu degan yahay joogaya ilaa wada hadal la gelayo. Soomaalilandna wada hadal ay diyaar u tahay bayaabana ciidanka meesha maray iyo ciidanka xagga hore jooga tirada inay yihiin maba moodan waxaan islaam ciidanka lumiyaa la soo kaxeeyay. marka waxayna tusaa waxa weeye ciidanka Somaliland ciidan lagu seexan karo. waxaan soo dhaafay waxa weeye waxaan salaam idinka siinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu na soo faray in la idinku ogyahay shacabka Somaliland meel uu joogana waxaan ku dhiirin karayaa waxa weeye guryaha ku horitaan waa ciidanka Somaliland waxa la wixii taakulayna waa in taakulayna la soo taagaa haddaan nahay golaha wakiilada oo aan gudoomiye ka ahayna wixii taakula waxba kala harimayna ciidanka Somaliland abaalkana waad heli doontaan. waxa weeye horena waad u dagaalanteen haddana waa dagaalanteen. marka waxaan idin faranaa waxa weeye nimanka Maleesiyada ee la soo habaabiyay ee la yiri markay idin arkaan bayaacayaana u tura wixii aad qabataan xanaaneeyo noo keena. qolada Puntland waxaan u sheegayaa waxa weeye waxa idinka soo horeeya waa waxaad aragtaan yaan been la idin sheegin ciidan carada iyo ciidan tegaya maaha. nabaddu waa shay qaali weey aniga iyo taliyuhuba wax badan baan halka ka dhawaaqnay goob badan ka sheegnay. waxa la yiri Soomaaliya waxay tiraahdaa warjoog soo joogso macna oo soo joogsay baa ku xigta soo waxa halka saaka ku cad nabadaan ku baaqaynay muddada dheer aanu af gaaban iyo af dheerba ku sheegnay in la qaadan waayo natiijadii caawaqamadii ay wixii ka dhasheen hadeeyo aanu halka ku aragno saaka. waxaan taliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhammaan uga hambalyeynaya guusha ay gaadheen. wixii intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacmatayna waxaan ilaahay uga baryaynaa dembi dhaaf iyo inuu ilaahay ya abaalkooda mariyo. 18 kilomitir inaynu hore u soconnay maanta xageenu taagannahay waa meeshaynu hore maalintii hore difaaca kaga jiray in ciidanka Soomaaliya Jamhuuriyadda Somaliland difaac yahay difaacu halka ugu xidhan yahay buuraha ugu xidhan yahay inaannu weerar ahayn bay cadeynaysaa si aanu u dhowrno xuquuqdeena caasimadnimo in ay u arki karaan inay safe ka yihiin yaanu ilaa for time being siinayna meel aanu ku gorowa loogu socdaa ma jirto. kuwa loo reer sheeganayana waa reernimada cidinagama leh reernimada cidinagama leh cidna uma daba fadhino. Khadar Maxamed Abdi Badda 24 TV Laascaanood.